الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى وهدى اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ولا ليال وحان بدنين كورن دونا إن شاء الله تعالى بإذن المولى إن نفاق يا منافق نملا ood moodo waayaha dambe shay laguba faano ama alqaabta iyo kelimaadka loo xambaarinayo si dadka loogu tashjiiciyo barbaarta iyo dhalinyarta soo koraysana loogu tusiyo inuu yahay astaamaha raganimada iyo dadka magaranaysaayay dadka ka horeeya ee ka waaya aragsan siday u dhaqmaan iyo markaad dhinaca kala eegto sidii diinteenu dadka ku sifoobay u dhaleecaysay ummadana uga digtay ay isku noqonayaan laba shay oo ah kaafiyo kala dheeri. ood maanta maqlayso in lagu leeyahay nifaaqii diintu ka hadashay qur-aankuna ka hadlay waa siyaasad, ama siyaasadda ayaanad aqoonin, ama waanad carbisnayn, ama fajidii reer hebel weeyaane la qabso iyo waxyaabo kaloo lamida. ama aad arkayso nin ummad hawluga mas-uula oo maamul haya, ama dadku waxu dhiibteen oo nin mas-uul loo haysto oo meel lagu hagaagaabaanay jirin, maalinna meeshu doona taagan, maalin calan buu sitaa, maalin calan kale, maalin qol la jooga, maalin qolo kale, oo meel lagu hagaagaabaanay jirin. ama saas oo kale aad arkayso nin wadaada oo magaranaysaa ilaahay qur-aanka baray, diintana wax ka baray, oo wuxuu sheegayo iyo magaranaysaa iyo afcaashiisu ay aad iyo aad u kala duwan tahay. nifaaqu walaalayaal diinteennu aad iyo aad bay uga hadashay, waxaana ugu filanba ka hadal iyo diintu siday uga hadashay suurad dhan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku magacaabay suuratulmunaafiquun oo qur-aanka ku jirta. nifaaquna laba shay unbuu noqon karaa siday culimadu ka hadleen, waa nifaaq caqadiya iyo mid camaliya. kacaqadigina waa gaalnimaba dee waa ka ilaahay qur-aanka ku leh wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyawmi alaakhiri wamaa hum bimu'minuun. dadka waxaa jira qaar leh ilaahay iyo maalinta qiyaamo ayaan rumayn oo iimaan sheeganaya haddana aan mu'miniin ahayn buu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku leeyay. kacamaligu isagu waa ka duwan yahay oo waa qofki isagoo muslina markuu ka gaabiyo daacaadkii ilaahay, dadka xunxunna uu ka dhex bixi waayo, uu iimaankiisu daciifo, in laga helo sifaadkii munaafiqiinta wax ka mid a. xadiiska nebigaana caddaynaya oo nebigu waa kii lahaa arbacu man kunna fiihi kaana munaafaqan khaalisa. afarka laga helaa waa munaafiq badhax tiran. waman kaana fiihi khislatu minha kaana fiihi khislatu min annifaaq. afartaa khisladood mid ka mida qofka laga helaana nifaaqa khisladihiisii wax ka mida ayuu ku sifoobay. waa kii nebigu markaa tiriyey idaa xadata kadab, waidaa wacada akhlaf, waidaa tumina khaan, waidaa khaasama fajar. markuu hadlayo been buu sheegayaa, marka la aamino dadku khiyaameynaya, markuu ballan qaado ballantiibuu ka baxayaa, markuu doodana doodiibuu xumaynaya. nebigu xadiiska wuxuu ku tilmaamay oo uu ku kala caddeeyey oo ina tusinaya xadiisku in culimaduna de ay ka warramaan ay u daliishadaan ictiqaadka nifaaqu inu marna ictiqaadka gelayo qofkii diintiiba u ka saaray, marna sifaadkii dadka qaar laga helayo oo laakiin aanay diintii kaga baxayn. se muhiim ay tahay inay dadka muslimiintu ka dheeraadaan. walaalayaal munaafiqiintu ilaahay subxaanahu wa tacaala markay camalkaa ku kaceen, warkoodana caddeyn waayeen, diinta ilaahayna ku kalsoonaan waayeen, ilaahay wuxuu u ballan qaaday akhriya adduunba cadaab. munaafiqiinta ilaahay wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame iska daa cid kaloo gaalada inay kasii darajo hooseeyaan. ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira. munaafiqiintu darakaadka naarta darakada ugu hooseysa ama barta ugu hooseysa ayay gelayaan ayuu ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya. mar kalena waa kii ilaahay lahaa bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaabun aliim.
bashir almunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima waxaad ugu bushaaraysaa munaafiqiinta cadaab aad iyo aada u kulul cadaab baa la isugu bushaareeyey waa ku digasho waa lagu diganaya cadaab baa laleeyahy ugu bushaaray waaka ilaahay qur-aanka ku le waminman xawlakum min alacraabi munaafiquun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بإلهي قرآن كتل مامي حليلي رير ميغان أكتينا وحا كترا منافقين رير مدينة وحا كترا منافقين نفاق وكمر حي مردوا على النفاق نفاق كمر حيوية and إلهي wuxuu leeyahay sanucadibuhum maratayn laba jeer baanu cadaabi doonaa uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim kadibna waxaa loo celin doonaa cadaabki weyn oo taa micnaheedu tahay adduunkana waa lagu cadaabaya cadaabu qabrina way leeyihin qiyaamahan cadaabkii kasii weynaa intaabaa loo celin doonaa culimadu waxay leeyihiin bale saxaabada qaarkood laga soo warinaya ilaahay baa adduunka ku cadaabaya aayaddu tilmaamaysa oo arrinkooda daahirin doona oo waxay dadka la dhex wareegayaan iyo isku dirka iyo ceebeynta dadka muslimiinta ay wadaan iyo inay shadaafaha u qaadaan diinta islaamka iyo waxay ka shaqeynayaan ba ilaahay baa dadka u muujin doona walaalayaal munaafiqiintu mundu duhuurihim ilaa yowmina haada dadka muslimiinta mashaakiil badan ayay dhex wadeen oo qisaska iyo taariikhda culimaduna kutubtooda kaga waramaan dadkuna dee ay ka warhayaan laakiin mar walbana ilaahay baa tilmaamay inay dad dullaysan yihiin waxna aanay dadka ka qaadayn oo ilaahay fashilinayo markaa ma doonayo inaan ka hadlo waxyaabo badan laakiin waxaan doonaya waayo mashaakil aan la koobi karin lagana hadli karin ayay munaafiqiintu dadka muslimiintaa ku hayay gaar ahaan usuusha diinta iyo lafdhabarta diinta islaamkay mar walba waxaan la aragoo la maqal ku sameynayay iska daaye saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam nool oo kuwii ugu fadli badnaa ay xukunka hayaan ayaa ay keenayeen afkaar khariban oo ilaa maanta dadka qaar aaminsan yihin sida ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu saba oo kale nin yuhuudiyu ah dadka muslimiinta munaafiqnimuu la dhex socday soo islaamay dadkiibuu qaar buu ka dhaadhiciyey uu awood u helay saxaabadii baa nool ayuu haddana qaar u awood u helay inuu ka dhaadhiciyo cali baa ilaahay waa kii cali gubay waa kii lahaa lamaa ra'aytu amran munkaran awjajtu naari wa dacawtu qumbura markii dambena cabdullahi ibnu cabbaas uu arrinta ka war helay uu lahaa war ragga inaad gubta ma ahayn nebi maxamed baa diiday in dadka dab lagu cadaabo lahaa laa tucadibuu bicadaab illah munaafiqiintu walaalayaal dadka muslimiinta dhib aan aad iyo aada u yarayn bay gaarsi bale iska daa waqtiyadaa fogo culimadii muslimiintaa bay nafta u keeni jireen oo kolay madaxda ku diraan kolay been ka sameeyaan sheekhii waxaan odhan laga sameeyo waxaan horey usoo jiri jiray siduu ilaahay ka warramayana waxaabaad moodaa inay isku dardaarmeen waa kuwa imika nool iyo kuwa waqtigii nebiga nool isku sibay u dhaqmaan tawaasow bihi bal hum qowmun taaquun imise sheekh waad garanaysaan sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah jeel buu ku dhintay waa wanjalaad jeel baa lagu geli ibnulqayim aljawsi waxaa la gaadhsiiyey heer uu firxad galo culimadaa been laga samaynayaa waayo dadku culimada hadday ku xidhmaan ragga waa laga badbaadaya cidda arrinkooda daahirinaysa fahmaysa waayo waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaame waxyibaa soo degayay oo dadka caddaynayay markaa ma doonayo mashaakilka badan ay dadka muslimiinta la dhex wadeen ama la dhex socdeen ee taariikhda ku badan inaan ka sheekeeyo laakiin waxaan doonayaa bal dhowr noqdo inaan ka yar hadlo bal nebi maxamed iyo saxaabadii nebiga wixii ku sameeyeen waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ee dadka isagaa ugu indheergaraydsanaa waxyibaa ku socday hadalkiisaa waxyi ahaa saxaabadii iyo dadkii uu tarbiyadeeyeyna nala mid maa ilaahay baaba qur-aanka ku ammaano kaga warramay inay yihiin raga min almuuminiina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayh waa ka ilaahay qur-aanka ku leh dadka muuminiinta waxaa ku jira raga raga waktigay noolaayeen iyo wakti dadka soo mara waktigii ugu fadli badnaa nebigu lahaa qurun la arko qarnigayga ugu fadli badan bal waxay sameeyeen baa wax ka odhan doonaa insha allahu tacaala walaalayaal munaafiqiintu
nebi maxamed iyo saxaabada mashaakil badan bay la daba socdeen. wax kale iska daayo waxay gaadheen heer nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in gurigiisa wax ka sheegaan oo umulmu'miniin caaisha radia allahu canha ay idhaahdaan xumaan ka faafiyaan oo dad saxaaba oo weliba ahlu badara ay ka dhaadhiciyeen awoodna u heleen inay ma garanaysaa ay hawshaa gaadhsiiyaan oo ilaahayna subxaanahu watacaala aanu ka hadal bildhan oo markii dambe waa ka ilaahay subxaanahu watacaala ku kashfiyey suuratu nuur qur-aankana u kaga warramay markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo ashtakooday munaafiqiintaana ilaa marba meel baa loo digaroganayaay ay haddana sameeyeen inay saxaabadii reera u kala saaraan oo reer ansaar u kala baxaan aws iyo khasraj oo lagu sigtay seefaha la iskula baxo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam welibana masaajidka madiine dhexdiisa nebigaa intuu yimid yidhi war nin baa dhibayo reerkaygiyaan waa iskaga taaglaya iga qabanay sheekadii macruufka ahayd axaadiisatulifk ma doonaya way dheerta inaan ka sheekeeyo laakiin waan tilmaamayaa munaafiqiintu waxay awood u heleen nebi maxamed ciidan uu wato inay kala jebiyaan weliba markii cadowga laysfoo taaray qaswat uxud intay saxaabada raaceen oo ay la dagaal galeen oo ma garanaysaaayay dagaalkii iyo meeshii la tegay gaaladii markii lays haleelay 300 oo nin bay soo dib ula soo baxeen cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo munaafiqiinta kale la socotay bale jaanis yar markay saxaabada ka helaan bay rabeen inay wax walba aakhira u diraan hadalkeeda iska daadee wax ka sheegitaanka iyo waxaan marka saxaabada iyo ma garanaysaayay dadka ma garanaysaa nebiga ka agdhadhow iyo dadka adu qaflad ma garanaysaa ay ku heli karayaan markay helaanna waxay samaynayaan ama ay sheegayaan hadalkeedaba iska daa bale ilaahay baa mar walba kashfinayo waa tii qur-aanka laga soo deji lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alcasu minha aladab rag baa waxaa ku hadlayay iska daabay lahayn in madiina ku noqonay le casiisku ka dulligaa madiina u ka saari doonaa dulliga la sheegayaana waa nebi maxamed marka la idhaha war waxaan maxaa igu kalifay oo maxaa saxaabaday wax caayi jiray way lahaayeen waa dad fulaya waa beenaalayaal munaafaqa waxaa sheeko u ah afkunbu ka adegi marka laysalana rag waa ka ugu fulaysan marka kalena lagama fadhiisanayo ilaahay baa qur-aanka kaga warrama waidaa tawallaa saca fi lardi maxay ahayd waidaa maxay ahayd qur-aankeed waxay ahayd marka la idhaho laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun ayadda kale waxay sheegaysay markay tawaliyaan ee hawshii ay lahaayeen annagaa kasoo bixi kareen in loo dhiibana yuhliku alxarha wannas wax walba aakhira u diraya waxay halaagayaan tarankii iyo beerihii iyo wax walba fasaadinay waxay awood u heleen munaafiqiintu iska daa wax kaloo inay masaajid sameeyaan ilaahay qur-aanka kaga warramay masaajid bay sameeyey la odhan jiray masjidu diraar wax kalena umay sameyne in dadka muslimiintaa lagu kala kaxeeyo dadka muslimiintaa lagu kala qaybiyo gaalada soo duulaysa dhufays uu noqdo والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون waxay sameeyeen masaajid la yidhaha masjidu diraac ay ka dhiseen masjidu qubaagtiisa ka dhiseen waxaanay u dhiseen waa gaalnimo kufri buu ilaahay tilmaamay wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin iyo dadka muslimiinta in la kala qaybiyo wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulah iyo dhufays dadka rasuulka iyo ilaahay la dagaalamaya markaasay weliba ku dhaaranayaan in aradnaa ila alxusna wallaahi wala yaxlifunna waa dhaar hadda waa muna sheekadan dee iyagana ibliis baa uga horreeyey nebi aadan iyo xaawaan muxuu ku yidhi faqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin hala yaabin markaad aragto in been sheega waa iska sahaalo war rag baa dhaar bay marayaan waaba la dhaaranaya ilaahay baa lagu dhaaranaya in wanaag loo jeedo haddana looma jeedo in aradnaa ila alxusna qisadan waxaa ka dambeeyey ninkii la odhan jiray caamir arraah nebiguna u bixiyey caamir alfaasir markii hore wuxuu qaatay diinta kiristaanka oo kristaan buu noqday isagoo carab ah
madiinu joogi jiray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bandhigay diinta islaamka wuu diiday diintii waa qaadan waayey laakiin wuxuu arkay inaan diinta ilaahay socoto yuriiduuna liyadfuu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuuri walow kariha alkaafiruun diinta ilaahay ayaa joojin karaya diintii markuu arkay diintii socota dadku say u qaadanayaan islaamkii xoogaysanaya bederoo la guulaystay ninka way u dhadhami weyday waa kii dagaaladii uxudya baa la tilmaamaa inuu raggii soo qorsheeyey qurayshu tegay soo qabanqaabiyu ka mid ah bale uxud nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam godku ku dhacay ninkii qoday isagu ah iyo raggii qoday buu ku jiray markuu haddana arkay wux waluu sameeyo inaan diinta ilaahay joogsanayn nebigi iyo muslimiintiina guulo mar walba gaadhayaan ayuu cararay baa la yidhi reer ruum uu boqorkii u tegay markaasaa uu ku yihi boqorkii reer ruum waxaan doonayaa inaad ciidan isiiso maxamed baan la dagaalamaya munaafiqiintii madiina u joogayna wuxuu yihi masaajid ii dhisa oo idinkuna halkaa dhufayska ka gala masaajidka waa la dhiso masjidu diraar baa lagu magacaaba masaajidkii markii la dhameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo yimi waxaa la yidhi rasuul alla waxaan doonayaa inaad masaajidka nagula soo tukato ma garanaysaa inoo timaadood masaajidkii ma garanaysaa in nagu kaalaydo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tabuuk buu sii socday ka cudur daarto wuxuu yihi safar baan gelayaay markaa soo noqdaan ini soo mari doonaa oo nagula soo tukan doonaa waayo nebigu de caalimuqayb muhayno qeybka mu ogeyn nebiga markaa markuu dhexda soo socday tabuuk ka soo socday buu ilaahay qur-aanka kusoo dejiyey suuratu tawba aayaadkan ka warramaya waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wakufran ilaahay weliba leeyahay laa taqum fiihi abada weligaa ha ku tukan oo ha tegin ibnu cabaas baa ku fasiraya laa taqum fiihi abadan laa tusalli fiihi abada weligaa ha ku tukan waa masaajid loo dhisay gaalnimo iyo dad munaafiqnimade nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa amar buu bixiyey masaajidkii la dumiyo lana gubo markaa masaajidkiina si baa lagu gubay hawsha munaafiqiintuna ay ku fashilantay markaa walaalayaal maanta qariib maaha in ma garanaysaaye dadka muslimiinta inta wanaag loo muujisto la arka haddana dad dinta ilaahay cadow ku ah oo mijaxaabinaya oo dadka madaxa isku gelinaya weligeed bay jiri jirtay maanta dagaaladuna waxa ay dadka muslimiinta la dhex joogaan ee la dhex wareegayaan laga warqabo qisas badanna dadku waa ka warhayaan waana ka dharagsan rag gaalaa intay gar la baxeen dhulalka islaamka imaadaan iska dhigaan rag diin baranaya ay xumaan duubtaan xumaan iyagoo dadka muslimiinta dumarkooda iyo ma garanaysa ay ku sameynaya saas oo kale intuu wadaad iska dhigu diinta bartuu fatwoonayaa wax macluum min addiin bidaruura inay xaaraan tahay oo maanta maqlaysaa wallaahi waxyaabaha laga sheekeynaya markaad maqasho aad u qariibsanaysaa lagana aamusi karay nin lagu leeyahay masaajid buu imaam ka yahay oo waa oday weyn oo waa sheekh haddana luudnimo iyo geynimo banaynaya oo isaga xitaa la sheegaya inuu yahay maraykanka ka jirtaad ya qaar baa la sheegay inta masaajid isku urursaday in masaajid waxaan wax uguba maaha laakiin waxaa loo baahanya dadka muslimiintu inay ka foojignaadaan il gaarana ku eegaan munaafiqiinta oo iska hubiyaan waxaana lagu garan karaa sifaadka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kaga warramay in la barto ilaahay suuratulbaqara bilowgeedoo keliya mu'miniinta wuxuu ku sifeeyey aayaadka hore dhowrka aayadood oo shanta aayadood oo horeeya gaalana dhowr aayadood oo laba aayadoodii baa lagu sifeeyey iyagana 13 aayadood baa lagaga hadlay oo sifaadkooda iyo wuxuud nabi maxamed ilaahay wuxuu amray in munaafiqiin lala dagaalo يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا دجال كنتنا سافق عظمة والنبي محمد لما هي تاريخ تا منافق كل يوم منافق لمن لوتلي أنت النبي محمد نورا ويجرتي أكوي علي يبدلي علي بن أبي طالب يبدلي وكي جبية عبد الله بن عباس مكرنا يساوي كويس وتحدث سأتوه هلك قالوا ولا دلكا لكن واي مشاكل كي كمسلمين تكره حريد أيام حواران in aad looga war hayaa fiican marka walaalayaal kow inaguna aynu iska ilaalino munaafiqnimada labana ha la barto astaamahooda iyo waxa ay ilaahay siduu uga warramay
انتهى كسوكو إله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرط